agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta daafuray kulan hawleedka wadatashiga ee Gaafi FPB ee ku saabsan barnaamijka tallaalka Soomaaliland. Kulan hawleedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda, isuduwayaasha wasaaradda ee gobolada dalka, iyo qaar ka mid ah hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda horumarinta caafimaadka ee UNICEF, hay'adda caafimaadka adduunka, Gaafi iyo Save the Children. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, Mahdi Daahir Bahdoon, waxa uuna ka warbixiyey ujeedka kulan hawleedkani iyo sida ay koox ahaan uga qayb qaadan doonaan habsami u socodka howlaha tallaalka. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'adaha hay'adda caafimaadka adduunka, UNICEF, Gaafi iyo Save the Children. waxa ayna dhammaantood hoosta ka xariiqeen sida ay muhiimka u tahay in laga wada shaqeeyo barnaamijka horumarinta tallaalka ee Soomaaliland, ka hay'ad ahaanna ay diyaar u yihiin inay wasaaradda kala shaqeeyaan kor u qaadista tayada tallaalka Soomaaliland. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye oo kulankaasi daafuray ayaa dhankiisa ka warramay kulan hawleedkan iyo waxyaabaha kala duwan ee diiradda lagu saari doono iyo sidoo kale ka wasaarad ahaan doorka ay ku leeyihiin. shirkan waxaa lagaga wada tashanayaa u diyaargarowga iyo qorshaha iyo preparationka portfolio kale ama grant kale oo lagu diyaarinayo sanadaha soo socda sidii ay caruurta Soomaaliland u heli lahayd tallaal. meelo gaara ayaa la doorbidayaa oo aynu doorbidaynaa priority-geena ugu horeeya, waxaana ka mid ah caruurta aan weligood la tallaalin sidii aynu u gaari lahayn. si aynu u gaadhno caruurtaasi waxay inooga baahan tahay xirfad, waxay inooga baahan tahay ku talagal, waxay inooga baahan tahay inaynu la nimaadno siyaasaddii iyo awooddii aynu ku gaari lahayn caruurta aan weligeed la gaadhin. waxaan wasaarad ahaan ballan qaadaynaa inaynu inagu qaybteenna qaadanno oo aynu inagu hoggaaminno oo aynu yeelanno hoggaaminta iyo maamulka iyo maaraynta brograamada socda, gaar ahaan brograamkan tallaalka, iyada oo aynu la shaqaynayno oo si qurux badan oo wanaagsan aynu ula shaqaynayno ciddii inagala shaqaynaysa ee partnerka inoo ah iyo ciddii doonarka inoo ah ee inoo soo qaadhaamaysa lacagaha lagu gaadhayo caruurteenna labadaba. waxaan jecelahay inaan dardaaran u jeediyo ka soo qaybgalayaasha guud ahaan, gaar ahaan ka soo qaybgalayaasha ka socda wasaaradda horumarinta caafimaadka, inay dhowraan wakhtiga, inay u muuqdaan inay shirka iyagu leeyihiin ee aan lagu marti qaadin, isla markaa ay uga soo horeeyaan cid kasta shirka 2 maalmood iyo 3 maalmood u socdo, si active ay uga qayb qaataan oo ka qayb qaadashadooda ay xoojiyaan, isla markaana ay iyagu lahaadaan hoggaaminta iyo ka warhaynta iyo sidii uu shirkaasi midhodhal u noqon lahaa intaba. waxaan idinkula dardaarmayaa inta ku qoran warqadda iyo inta kale ka soo qayb qaadan karaysaaba inay si buuxda u timaado, aynan muuqato ka soo qaybgalka wasaaraddu inuu yahay ka soo qaybgal luxdan oo xooggan oo muujinaya lahaanshaha brograamka. taasaan idinkula dardaarmayaa. waxaa kaloo kula dardaarmayaa ka soo qaybgalayaasha kale iyaguna inay qaataan fikirkooda sidii ay ugu biirin lahaayeen. dhan baynu u wada soconnaayeen sidii caruurta Somaliland ee aan weli la gaadhin aynu u gaari lahayn, sidii aynu u sii hayn lahayn intaynu gaadhnay halka aynu ku hayno, korna uga sii qaadi lahayn inaynu caruur badan tallaallo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. shirkuna wuu inoo furan yahay.